runtii waxaan dhammaan daawadayaal waa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa galmudug oo xabsiga u taxatay odayaal shabaab heshiis la soo galay booliska Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah saddex dhalinyaro oo tacaddi u geystay gabar Soomaaliyeed madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka difaaca dalka Kenya oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha jubba balse intaanu barnaamijku guda galin fadlan noo faafi barnaamijka adigoo isla markaana ku share garanaya asxaabtada baraha bulshada haddaad barnaamijkeena ku cusub tahay fadlan nagu soo biir adigoo isla markaana subscribe dhahaya mahadsanidin aan ku bilaabnay ciidamada ammaanka galmudug ayaa xabsiga dhigay odayaal shalay saxaafadda kula hadlay magaalada cadaada kuwaas oo ka soo laabtay deegaanada al-shabaab haysta ee galmudug taliyaha qaybta 21 ee ciidanka xoogga dalka jenaraal xasan jaamac oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay odayaasha la xiray in loo gudbiyay dhuusamareeb si sharciga loo horgeeyo sidoo kale wasaaradda amniga galmudug oo war kooban ka soo saartay ayaa digniin uga dirtay cid kasta oo al-shabaab la macaamisha inta laaba laga qaadi doono si la mid ah odayaasha shalay la xiray odayaasha la xiray ayaa lagu kala magacaabaa sugaal warsame cali yare axmed cali iyo cumar maxamed jimcaale waxayna muddo ku dhow bil ku sugnaayeen magaalada Xaradheer halkaas oo ay ku soo saxiixeen heshiis 8 qodob ka kooban gudoomiyaha degmada Cadaado Farax Deriya Warsame oo isna ka hadlayay xiriga odayaasha ayaa sheegay inay dambiilayaal yihiin cadaaladana la horkeeni doono iyaga iyo wariyaasha wareystay saacado ka hor ayay ahayd markii odayaashan oo ka soo laabtay magaalada Xaradheer ay sheegeen in al-shabaab ugu tageen sideenta dad la haysto dhanka kale ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah saddex wiil oo dhalinyaro ah fal tacaddi ah ugu geystay degmada Baardheer ee gobolka Gedo gabar Soomaaliyeed oo 20 sano jir ah isla markaana muuqaal ka duubeen kuna baahiyeen baraha bulshada ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho ayaa soo qabtay wiilkan eedeysanaha ee lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamed ciidamada ammaanka waxa uu suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan mid ka mid ah saddex dhalinyaro ah oo fal tacaddi ah kula kacay gabar aad u daayar walibana muuqaal ay ka duubeen kuna faafiyeen baraha bulshada soo qabashadiisa waxa iska kaashaday ciidamada ammaanka Baardheer iyo kuwa Muqdisho oo isdhaafsaday xogaha eedeysanaha waxaana sidoo kale ku raajoogan labada eedeysane ee kale oo aan ka soo qaban doono meel walba ay dunida ka joogaan ayuu yiri afayeen doodishe afayeenka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in eedeysanayaashani ku wareejin doonaan hay'adaha garsoorka si loo marsiiyo cadaaladda isagoo xusay in gabadha dhibanaha ah ay ku sugan tahay gobolka Gedo ay halkaasi ku heli doonto cadaalad falka tacaddiga ah ee saddexdan dhalinyaro ay kula kaceen gabadha yar ee lagu magacaabo Faadumo isla markaana muuqaal ay ka duubeen kuna faafiyeen baraha bulshada ayaa maalmo kooban ka hor ka dhacay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo waxaana dhacdadaasi si weyn uga xumaaday shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qaabilay wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale halkaas oo ku tagay booqasho iyo kormeer la xiriira ciidamada Kenya ee qaybta howlgalka ATMIS labada mas'uul ayaa la sheegay inay kulankooda uga wada hadleen diyaar garow loogu jiro sidii loo bilaabi lahaa howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab ee ku sugan deegaanada maamul goboleedka Jubbaland iyo taageerada ciidamada dowladda Kenya ee ka midka ah